Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono xaaladda dalka Itoobiya. Abiy Ahmed waxa uu qorsheenayaa tallaabo lama filaan ah oo la xiriirta dagaalka ka soconaya gobolka Tigray. Falaqayn ayaa daawadayaal ku sameyn doona arrintaasi. Itoobiya waxa ay dhisanaysaa ciidamo badeed, haddaba sababtu maxay tahay? Halkan ayaa daawadayaal idinkula wadaagi doona. hayeeshee inta aanan arrimahaasi falaqayntooda guda gelin waxaan daawada ka dalbanaya oo ka codsanaya muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya. milatariga dowladda Itoobiya ayaa qorsheenaya in ay gudaha u galaan caasimadda gobolka Tigray ee Maqale ayna ka takhalusaan xoogaga TPLF sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan milatariga xilli ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo colaadda ka walaacaysa waqooyiga dalkaasi ee Tigray. dalka geeska Afrika ee Itoobiya ayaa muddo markaasi ka badan hal sano waxaa ka socday dagaalo iyadoo ciidamada federaalka iyo xulafadooda ay la dagaalamayaan ciidamada daacadda u ah xisbiga TPLF oo ah xisbi siyaasadeed oo ka taliya gobolka Tigray. taliya ku-xigeenka ciidamada difaaca Itoobiya General Ebabo Tedesa oo waraysi siinaya warbaahinta ku hadasha afka dowladda Evana ayaa sheegay in ay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF. Tigraygu waa qayb ka mid ah Itoobiya, mana jirto awood naga celinaysa in aan galno, waynu geli doonaa cadowgana waanu ka saaraynaa, ayuu yiri General Ebabo Tedesa. waxa uu sheegay in ay markaasi isku diyaariyeen sidii ay gebi ahaanba meesha uga saari lahaayeen cudurada ama markaasi xuduudda military ee TPLF, isagoo intaasi raaciyay in aysan la gorgortamin doonin. afhayeenka kooxda TPLF ka tajurada ayay markaasi sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo qortay warbixintan in aysan u suurtagelin in uu wax faahfaahin ka bixiyo hadalka sargaalka ciidanka Itoobiya. toddobaadkan laba diblomaasi oo Mareykan ah ayaa u duulay Addis Ababa si ay u riixaan xabad joojinta iyagoo isku dayaya in ay dhisaan calaamado muujinaya kalsoonida xiriir dhex mara dhinacyada dagaalamaya oo ay ku jiraan sii deynta maxaabiista siyaasadeed. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee OHCHR loo soo gaabiyo ayaa walaac ka muujiyay duqeymaha cirka ee lagu eedeeyay in ciidamada Itoobiya ay ka geysteen gobolka Tigray. kooxda TPLF ayaa sheegtay in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu doonayo in uu soo afjaro nidaamka federaalka ee ku saleysan qowmiyadaha, halka Abiy Ahmed uu sheegay in TPLF ay doonayso in ay la wareegto awoodii qaran ee hore u haysay. waxaana arrimahan oo idilba soo dusiyay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana arrimahan oo idilay ku soo aadayaan xilli la doonayo in xabad joojin la dhex dhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi Itoobiya waa dowladda iyo sidoo kale jabhadda falaagada ah ee TPLF. Itoobiya waxa ay dhisanaysaa ciidamo badeed, sababta ayaan daawadayaal isla eegi doonaa. Itoobiya oo ah wadan aan lahayn wax bada ayaa sanadihii la soo dhaafay ku horanaa dhismaha ciidamada badda kuwaas oo laga leeyahay ujeedooyin muhiim ah. tan iyo horaantii 1990-meedyadii Itoobiya ma lahayn ciidamo badeed oo shaqeeya, inkastoo wadanka uu hore u lahaa awood ciidan oo dhanka badda ah. isla markii uu Abiy Ahmed noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya 2018 waxa howlihii uu gudagalay ka mid ahaa in uu ka shaqeeyo sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xuduudda ciidanka badda ee wadankiisa. wakaaladda wararka Evana ee ku hadasha afka dowladda Itoobiya ayaa soo xigatay Master Abiy oo sheegaya in dib u habeynta militariga ay tahay in lala jaan qaadsiiyo dunida isbeddelka degdega ah sameynaysa, sidoo kalena ku tallaabsanaysa horumarka dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda. si ay xukuumadda Addis Ababa dib ugu yaqleesho ciidankeeda badda, waxay u baahan tahay dalal ka caawiya dhinaca helitaanka badda oo ku yaala gobolka Geeska Afrika, sida uu qoray bogga online-ka ee Naval Post.
oo ka faalooda arrimaha militariga iyo awoodda ciidamada badda. wararka ku saabsan in Addis Ababa ay dib u dhisayso awoodda ciidamada badda ayaa soo shaabaxay kadib markii Mr. Abiy Ahmed uu kulan la yeeshay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo u bedel markaasi qaaday in uu dowlad ahaan Ethiopia uga caawin doono dib u dhiska ciidanka badda. 2019 ayay Ethiopia iyo Faransiiska kala sixdeen heshiiskii ugu horeeyay ee ku saabsanaa wada shaqaynta dhismaha ciidamada. waxay u muuqataa in Faransiiska uu yahay dalka wadankan ku yaala bariga Afrika garabka ku siinaya tababarada iyo qalabaynta ciidanka badda. ujeedada ciidamada badda ee Ethiopia ayaa la aaminsan yahay in ay isku dayeyso sidii ay saameyn dhanka awoodda ugu yeelan lahayd gobolka dhinaca bari ee badda cas ayna la wareegto ilaalinta amniga marinada badda ay isticmaalaan maraakiibta ganacsiga Ethiopia. inta badan maraakiibta badeecooyinka u wada Ethiopia ayaa adeegsada badda cas iyo gacanka Caadan. arrintan waxay ku soo aaday xilli gobolka ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyada kooxaha burcadbadeeda walow ay howlgaladooda hoos u dhaceen wixii ka dambeeyay markii ciidamo caalami ah la soo dhaway biyaha badweynta Hindiya. xagee saldhig markaasi badeed looga helaya ciidamada badda Ethiopia wixii ka horeeyay 1990 Ethiopia ma ahayn wadan badlaan ah, ciidamadeeda badduna si buuxda ayay u shaqeynayeen. wixii ka dambeeyay dagaalkii sokeeye ka dhacay Ethiopia sanadkii 1991 Ethiopia waxay weysay xeebteeda oo ay ku jirtay dekada muhiimka u ahayd ee Casab, taasoo wadanka ka dhigtay mid aan bad lahayn kadib markii ay Eritrea ku dhawaaqday madax banaanideeda. arrintaasi ayaa Ethiopia ku qasabtay in ay howlgalada ciidamadeeda badda u wareejiso saldhig ku yaala wadanka Yemen. balse dhowr sano kadib 1993 dowladda Yemen waxay dalkeeda ka soo ceerisay maraakiibta ciidamada badda ee Ethiopia. sidaasi awgeedna Addis Ababa waxa ay go'aansatay in ay u wareejiso dhinaca dalka Djibouti oo ay la gashay heshiis ay markaasi kiro ku bixinayso. hase yeeshee 1996 Ethiopia waxay ku guuldareysatay bixinta lacagihii kirada ahaa. taasi waxay keentay in Djibouti ay la wareegto maraakiibta ciidamada badda Ethiopia ee harsana sida uu qoray Naval Post. hadda kadib soo nooleynta ciidanka badda Ethiopia waxay saldhig ka heli kartaa 4 wadan midkood Eritrea iyo Djibouti oo ah kuwa ugu waaweyn ee la filan karo. Kenya oo u muuqata in ay xoogaa ka fogtahay Soomaaliya oo deris kala dhanka kale.